سؤال baan horta idin weydiiyay Soomaaliya fanaanka dayaxda nuursha la yiraahdo awoodan xagee buu ka keenay ninkan aan hal qof lagula dagaalami karin marna qaran lagula dagaalamayo marna group lagula dagaalamayo marna qabiil lagula dagaalamayo asaguna keligii xabad ridanayo ummadiina Ilaahay jeclaysiiyay awoodan xagii uu ka keenay baleeshaga karaamo uu Ilaahay siiyay miya madiba horta ninkaas haduu madi yahay anu waan qofku haduu madi yahay weligiiba waa ruucada madi weliga ha ka shakiin ninkaas haduu madi yahay weligeena walaalkuma aan agarag waxa u maleynaya inuu madi yahay madi hadii uu yahay waanu garaabaya laakiin haduuna madi ahayn awood xaq uu ka keenay waanu baahan habeenkii xalay ahayd waxa dhacay show gabi ahaan bal lagu mudaharaadayo ama lagaga hortagayo awoodan xad ka baxa ee dayaxda nuursha showga gabi ahaan ba 5 daqiiqo waxa la daarayay King of City waa ayaba la dhahayaa markaas dadkii meesha joogay showga laftirkooda waxay dhahayaan dayaxda nuursha qaarkood haddana wax yar baa la soo baxay yaa keligii magaalada shidan kara dadkii meesha jooga waxa laga rabaa inay dhahaan marwaan yar iyo wax noocaas dayaxda nuursha bay showga habeenka xalay ahayd inta fanaan ee isugu tagtay baan idin tiranaya dhageysta waa qadarkeeyo waa aar ka mid la dhihi jiray oo Hargeysa intuu waa hees ku qaaday anu ninkaas talada kaliya tan siin lahaa horeyna waanu siiyay Hargeysa inuu jooga bay ahayd hal hees uu qaaday hal hees uu qaraxday 10 heesooda dambana uu qaaday ma qarxin hal hees uu qaraxdayna waa tuu Hargeysa ku qaaday hoyga fanka bilaash loo madhin baqari haddaan israadana ma qarin kara limintooda landrisk ariga hooya wax hoyga fanka sababta loo yiri tan oo kala ku cadeynaysa kaas labadhe ninkii la dhahayay marwaan yar oo showga qabsanaya iyo qadarkeeyo iyo aarkaas ma iga haysa shaadiya sharaf oo xagan ka soo baxday iyo teamkeedii oo dhan kashkaha ordaya luusinada tiktoker iyo loobaba kala harin haddana saasay tahay meesha barnaamijka lagu hayo waxay sidee baynu GB uga dhignaa dayaxda nuursha waxa laga dhigi waayay hal buu ku soo jawaabay qacdo uu ka yeersiiyay hal heesa la soo dubay heesana waxa la yiri dameer gaari waa faras waa digsooga dameeruba ku tilmaamay gabigoodiiba nimankii hal heesu iska soo dubo tiktokiisa uu soo dhigay heestana wuxuu soo dul saaray in dameerku una gaari kareynin faraska iyaguna dameeraha ay yihiin asaguna faraska uu yahay war waxaan hor reaction halkan kuma qaban kare kick qalam hal laba baa igu qoran hadda la soo galaya haddaan go'aan idinku dul gaadhiba kick baan hadda soo galaya oo reaction kaga bixinayaan iyo video kuma soo koobi karayo xaaladda kuma soo goobi karayo haddaan la soo galaya kick qalam hal laba baa igu qoran kick igu kaalaya